aniga ku hadlaya magac Burhaan Maxamed Axmed waxaan ka hadlayaa maanta waxa loo yaqaan personal hygiene ama loo yaqaan nadaafada qofka oo ah wax lagama maarmaan ah oo ay ku saabsan tahay saddex qodob oo ah body odor loo yaqaan urka jirka ama hand washing oo ah macnaha in qofka uu gacmaha u dhaqdo waa wax aad iyo aad muhiim u ah qofka bini'aadanka inuu jirkiisa uu nadaafada uu markasta ka shaqeeyo oo markasta jirkiisa uu kula dadaalo sidoo nadaaf u ahaan lahaa haduu gacmaha haduu dhaqan lahaa haduu noqon lahaa inuu qubaysto ama uu shower qaato ama uu isticmaalo shampoo sida la socotaan waxa jira qofka marka uu hindhiso kale waad garan kartaan xawliga ay ku socoto qofka markuu dhinto waxa lagu qiyaasaa cadayga 100 mil inay ku socoto runtina waxa muhiim ah qofka marka uu hindhisayo in uu gacmaha uu saandho saas u dhiso halka saarta gacanta si macnaha qofka kale uusan u gaarin runtina waa wax muhiim ah oo aad muhiim u ah sidoo qofka markuu hindhisayo uu qofka ku hordhis lahaa uu faafin lahaa ama cudurka ama hargabka ama waxyaalaha qaarkood waana runtii germs-kaas runtii way loogu badbaadi karo waxay tahay in qofku markasta uu musqusha galo ama waa inuu gacmaha dhaqdaa waa in marka wax cunaayo oo sidoo kale gacmaha iska dhaqaa marka uu macnaha xayawaan taabto ama ay noqoto eeyga loo yaqaan oo kale xayawaan kale inuu gacmaha iska dhaqo runtuna iyo waxyaalaha kamid ah dharka oo ay kamid tahay skaalshooyinka masaqsado English lagu dhaho waa muhiim sababtoo jirka macnaha uu soo shiiraa qofka bini'aadanka waxaana muhiim jirka in qofka inuu macnaha markasta uu jirkiisa uu macnaha nadiifiyo oo ku taxadiro si macnaha uu jirkiisa markasta uu ahaado nadiif waana ogsoonahay dad islaam baan nahay in markasta muhiim tahay inaan ka shaqeyno nadaafada jirkeena waxyaalo badan ayuu qofku jirkiisa u isticmaali karaa jirku carfin karaa saabuunta oo kale waxa loo yiraahdaa bathka oo kale markuu qaadanayo kale ama qubaysanayo kale qofku inuu macnaha jirkiisa nadiifiyo gacmaha markuu dhaqanayo kale sanitize wax loo yaqaan oo kale oo macnaha ay tahay gacmaha inuu ku dhaqdo ama saabuunta oo kale waana muhiim waxyaalahaas oo dhan waxaad ka heli karaa meel kasta ka heli kartaa jirka qofkana waa muhiim lagama maarmaan markasta waa inuu ahaado nadiif midda kale oo muhiimsan waxay tahay in uu qofku uu marka uu gacmaha dhaqdo uu qalajiyo macnaheedu waxay tahay ama shukumaan ama mara nadiif wax nadiif oo ku qalajiyo gacmihiisa si markaas uu macnaha umsuus ka soo baxo kala soo isku qalajiyo waxyaalaha ugu muhiimsan oo runtii ay tahay in qofku uu ogaado waxay tahay in bacteria iyo wax walba ay ka dhalan karto qofku uu macnaha jirkiisa ama hadii macnaha uu jirka soo uraayo kale hadii qofka qufacayo kale qofkii hadii macnaha hindhisayo kale oo hargab soo haayo kale in qofkii society-ga uu ku filan karo si fudud waana muhiim sida looga hortago waxyaalo fudud oo lagu hortagi karaa ay kamid tahay in qofka saa u sheegay horeba uu gacmaha oo markasta ceshto waa mid ugu muhiimsan oo aad laga maarmaan ah qofkana markastana waa inuu haduu la waxyaalaha qaarkood wasaq ama chemical ama waxyaalaha qaarkood ay tahay in qofku gloves uu gashto kale gacmaha uu gashto gloveskaas waxyaalo badan ka badbaadin kara qofka uu macnaha uu jirkii waxyaalaha cudurada keeni kara oo ka badbaadi kara jirkii oo isticmaala deodorant kale kalkalaha kale qofku isticmaalo waa muhiim kuwaas waxa soo noqon qofka bini'aadanka carfinaya ka hortagaya germs-kii macnaha noqon lahaa in qofka uu macnaha ku fidiyo naftiisa iyo dadka kaleba waxa laga maarmaan ah in qofka markasta gacmihiisa uu dhaqdo meel kasta uu joogo marka uu musqusha galo marka waxyaalaha uu ku shaqeeyo kala taabto in uu nadiif u noqdo qaasatan marka gacmaha dhaqayo musqusha markuu galo kale markuu ka soo baxo kale markuu cunto cuno kale hore uu sheegay marka uu xayawaan taabto kale waxa soo dhan waxay keenaysaa wax qofka nadaafadiisa badbaadiyo waxaana u sameeynaa arintan in dadku ay macnaha publiga ay helaan ka hortagid laga hortagayo cudurada yar oo faafi kara saad la ligeed waa muhiim waan laga maarmaan qof kastana ku dadaalo muhiim waxa runtii ah in qofka uu markasta ogaado nadaafada qofka jirkiisa oo runtina muhiim ah maxaa kale oo kamid ah timaha kale runtii waan ogaan karnaa waxaan dhihi karnaa timaha hadaan la dhaqin oo kale in jir baa geli karta runtina waana muhiim waan laga maarmaan in qofku shaambo ku dhaqo
waxyaalo badan oo runtii qofka dhibaatooyin keeni kara ka jimida waxa kamid ah cadiga oo kale in ay cadeystaan in ka la cadeeyo cijiyaha la iska jaro waad garan kartaa waxaas oo dhan qofka waxyaalo badan bay ka baadinayaan caafimaadkiisa waan ogtahay jirka in macnaha uu markasta uu yar sii daayo oo runtii dhibaatooyin badan oo kaas dadku qaarkood ay u keenaan waxa kale muhiim ah in qofka dharka uu dhaqo oo dharkiisa uu dhaqdo markasta uu nadiif ahaado sidoo kale waxaan la soconaa jirka in uu sameeyo waxa la yiraahdo pheromones oo macnaha qofka uu jirka uu sii daayo waxaas oo dhan wuxuu qofka ka badbaadayaa in macnaha uu markas ku taxadiro nadaafada inuu markas ka shaqeeyo baadihiisa uu dhaqo cijiyaha uu iska dhaqo gacmaha uu dhaqo cijiyaha uu iska jaro kuwa lagu iska jaro waxaas oo dhan waa wax ku soo aruuraya in qofka uu markasto nadaafada uu la socdo qaasatan markaan ka hadlayno waxyaalaha ku saabsan bini'aadanka jirkiisa ha noqoto hadda aan barnaamijkan ugu talagalnay oo aan saddex qayb u qaadnay personal hygiene oo ah nadaafada qofka jirkiisa iyo body odor oo ah urka jirka iyo hand washing saddexdaas wax oo kale markaad fiirisid waa waxyaalo runtii aad isweydiin kartid oo ah macnaha bini'aadanka qof bini'aad caafimaadka uu wax weyn uu noloshiisa ka bedelo uuna ka qayb qaato qofkaas oo runtina ah markasta in u saamaxayso in uu ogaado nadaafadii muhiimadda ay leedahay haddaad macnaha naftaada aad jirkaaga nadiifisid haddaad gacmahaaga dhaqdid haddaad macnaha timahaada aad macnaha aad nadiifisid waxaasoo dhanna waad garan kartaa macluumaad bay u baahan yihiin lagu nadiifiyo runtina macluumaadkaasoo dhanna waan saa hore usoo sheegnay waad garan kartaa qof kastana waad ogaan karta waa ogyahay shaambadoo kale sanitizerkoo kale uu ku dhaqdo gacmaha baadigii oo jirkiisa macnaha uu dhaqdo waana wax runtii qofka bini'aadanka uu naftaada xataa ka dareemi kartid markuu qofku nadiif yahay uu soo carfaayo waa dareemaysaa runtina qofku waa lagama maarmaan jirkiisa markasta inuu nadiifiyo waxyaalaha runtii oo raba inaan dadka la sheergareeyo oo muhiimadda ay tahay waxyaalo badan oo iska fududaa jira si kadisba u hindhisi kartaa laakiin waa inaad markastaba aad ogaataa hindhisadaas in macnaha virus uu la socdo oo macnaha uu markiiba ay fido waana muhiim qofka markasta sida ugu dhaqsaha badan leh in uu markiiba gacantiisa uu kula ordo oo macnaha gacanta saas u saarta hore u soo sheegay waxyaalahaasuna waxyaalaha nafteena u baahan inaan ku baraarujino oo dadka dhanna aan markastana aan kala qayb qaadano oo annagoo aan ugu horeyno oo dadka communityga ama qof walbana ay muhiim ay tahay in macnaha ay tahay wax aan ceeb ahayn oo nadaafadu ay tahay shay lagama maarmaan ah waxaan ku soo gabagabeyn lahaa barnaamijka in aan markasta aan fiirino nadaafada oo asaaska annaga ee noota islaamadaana asaaska ay tahay lagama maarmaan ay tahay qof walba bini'aadan asaas ay u tahay nadaafadu qofku markuu soo uro waad garan kartaa qofka dhibka kale u geysan kara ama cudurada ahaado uu qofku xataa sida uu macnaha u reaction u sameeyo ama uu markiiba u naxayo marka waxaan ku soo gabagabeyn lahaa in aan markasta aan ilaalino nadaafada jirkeena gacmaha iska dhaqno oo markaan soo shagalno markaan ka soo baxno markaan waxyaalaha qaar ku taabano inaan iska dhaqno aan iska qalajino waxaan isticmaalno waxaas oo dhan waa macluumaad u baahan lagama maarmaan ah